xamarweyne waxay kamid tahay sida hore aan ugu sheegay degmooyinka ugu qadiimsan ama ugu faca weyn ee degmooyinka gobolka Banaadir. xamarweyne waa degmo ku taala magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir waxayna leedahay taariikh fac weyn sida ay noo sheegeen dad taariikhda degmada wax badan ka og. gudoomiyaha degmada xamarweyne Cumar Shariif Jaag ayaa sheegay in degmada xamarweyne ay kamid tahay degmooyinka ugu faca weyn gobolka Banaadir isla markaana ay jiraan waxyaabo badan oo ay caan ku tahay. sidoo kale gudoomiyaha degmada xamarweyne ayaan weydiiyay inta waaxood oo ay degmada ka kooban tahay. degmadan sideeda waxay ka kooban tahay waa 4 waaxyood waa Kacaan, Gobolnimo, Horseed iyo Hilaac. intaas ka kooban tahay. degmada xamarweyne waxaa ku yaala goobo qadiimi ah oo ay ka mid yihiin masaajido. خوم بدن dad badan muslimiin badan oo ku soo dugteen ninka dhisi ilaaha karaale naxariis kun ilan boqol sano meesha lagu dukanayay ninka dhisi radallaahi waa heli waa gaari aad u khadiim u yahay masaajido khaarkiisa oo Makka iyo Madiina ku yaalo ayuu khadiimsan yahay. Makka iyo Madiina masaajido ku yaalo aan xarameenka aan ahayn ayuu khadiimsan yahay. lamada xaram aan ahayn أنا كعبة يوم مارس المسجد النبوي أنا هين يوم مسجد القبلتين أنا هين يوك خديم سيهاي مركب حواي وأنا كسين والله شيء وأنا وأبيه أنت خنت الإنسيدات سنة إمامك أهاي ay ka mid ahaan jirtay meelaha ugu quruxda badan gobolkan Banaadir haddana ay ku tala jiraan ayaa sheegay in degmada in sideedii hore ay ku soo celiyaan isla markaana bilicda degmada ay dib u soo celin doonaan. degmadan waxay ahaan jirtay meel habeenkii 10 saac markii la gaaro la dhaqo la nadiifiyo la dhaqo subaxii loo soo kaco meel wada dhala ah ee muraayad la iska arkay. haddana waxaa arkaysaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka degmada, shacabka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa ninkii qashinka jidka ku arko waa inuu ka qaado ee meel munaasaba ku shubo. dalkan annaga iskale annagaana laga rabaa sidaan guryaheena u dhisanayno inaan jidadkana u dhisano. dadka guryaha ku kaysadeen dadka qurbaha jooga hadda oo kala socdo xaaladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir gaar ahaan xamarweyne kana shaqeeyaan sidii wadankooda ay u maalgashan lahaayeen hantida ay banaanka ku haystaan ay xamar kaysadaan si ay ugu faa'iidaan walaalahoodana ay ugu faa'iideeyaan shaqo abuurna ay u sameeyaan sidaas dadka kale ay ku jeclaadeen ay la soo dageen dadka kale ay ku ganacsadaan. xamarweyne waxay kamid tahay degmooyinka ugu qadiimsan ee 17 degmo waxaa ka furan ganacsiyo waaweyn ka furan xarumihii dawladda ku yaado waxyaabo badan oo degmooyin kale ay kaga duwan tahay dhanka ganacsiga hadii noqon lahayd dhanka dhismooyinka hadii noqon lahayd qadiimiga dhanka hadii noqon lahayd laamiyada hadii noqon lahayd waxaas oo dhan waxa xamarweyne waa meel ay leedahay haddana ay horumar ay sameynayso maalinta ka dambayso.